ما taqaanaa sida ugu fudud ee jannada alle aad ku heli karto. Tani waa sir weyn, qofka Ilaahay waafajiyo unbaa ka faa'iiday. waxa kaliya laga rabo waa 2 daqiiqo iyo niyadaada inta ma heli kartaa. waxaan ku jirnaa waqti uu mashquul ku badan yahay oo qofka asagoo niyad ahaan u rabo inuu wanaag qabsado haddana uusan haleeleynin, bal tan xooggaaga iskugu geey oo aysan ka hoos bixin. wax kale ma aha waa hal duco aad subaxii hal mar akhrinayso, galabkiina hal mar Ilaahayna uu kugu siinayo janno. Nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa noo sheegay waa sayyidul istighfar. haddii aad tiraahdo Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastada'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. adigoo saaka ducadan akhriya haddii aad maanta kala dhimato Ilaahay jannaad ku leedahay. haddii adigoo galabta akhristay aad caawa dhimatana waxaad ka mid tahay ahlu jannaha sida Nabiga sallallahu alayhi wasallam uu noo sheegay. waxa hubaala in qof kasta oo naga mid ah uu dhiman doono maalin maalmaha ka mid ah ama habeenada ka mid ah. haddaba habeenka iyo maalinkaas waqtiyada kama taqaanid. inaad jirantahay inaad caafimaadsan tahay kuma xirna geerida. wadnaha ku istaagi karo, shil baad geli kartaa, sidaad u seexataa nafta lagaala tagi karaa. marka maadaama waqtiga aadan aqoonin, ducadan sahay ahaan u qaado subax kasta iyo habeen kastaba si haddii nafta lagaala tago ay kuugu noqoto wada jannada ku geyso. waxaa kaloo aad muhiim ah markaad akhrinayso in niyadaadu ay xaadir tahay, macnahana aad fahmayso. Allahumma anta rabbi, Ilaahay wadiga rabbigay ah, la ilaha illa anta, mana jira alla xaq lagu caabudo oo adiga ahayn. khalaqtani wa ana 'abduk, wadi abuurtay ana adoonkaagii baan ahay, wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastada'tu, waxaan dhowrayaa ballankii iyo wacadkii aan kula galay inta aan awoodo. وأعوذ بك من شر ما صنعت، الله وحن كامل قلايا شرط الدنبيذي أن جيستي. أبوء لك بنعمتك علي وحن قرنايا لمعوين كأد كركي يا شيء، وأبوء بذنبي إيا الدنبيذي أن قلي فاغفر لي إي جنبي دا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، مجرى مدن بيذا دافه وأنا ذيك هيني. هذا بعد نقطة qof alle u toobad keeno oo ducadan subaxii galabkiiba akhristaa isagoo ka go'an tahay inuu Ilaahay dambiyada ka dhaafo, amal wanaagsan sameeyo, Ilaahayna aad aaminsan tahay, alle xumaanta ka dhacdo wuxuu u bedelayaa wanaag. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما.